waxaan idinla wadaagay horta waa jimce maanta jimce wanaagsan mar raba idin leeyahay waana jimcihii ugu dambeeyay sanadka 2019 insha Allah waxaan rajeynayaa sanad bashbash iyo barwaaqo inuu inoogu dhamaado insha Allah inta dhibaataysan Allah caafiyo inta bashbash iyo barwaaqada ugu dhamaadayna waxaan rajeynayaa sanadkan soo socda insha Allah bidlaahi kariim inuu Ilaahay midkii ka farxad badan oo ka qurux badan inooga dhigo maanta qisay ahayd day sheekan idinku soo min guuriye waxa ka dhacday tuulo kamid ah dalka Russia waxa jiray nin aad u faqiir ah markaana wuxuu deganaan jiray meel tuulo baadiyaheeda uu deganaan jiray ninkaas dabadeedna maalmaha kamid ah tuuladii soo aaday ninkii wuxuu arkay laba nin oo walaalo ah oo isku haysta dhowr bilood oo aabahood dhaxal uga dhintay markuu ninkii u imaaday labadii nin wuxuu dhahaa war idinka waxa isku dilaysiin baloodho haddaan lahaan lahaa laba taako oo kamid ah dhulka adduunkan hanti u lahaan lahaa amal cidbu waxba igama maqnaadeen waxba kumaanan murmeen ninkii sidaas markuu dhahay ninka marka reer baadiyo ahaa reer buu u shaqeyn jiray laba caruurna uu lahaa iyo xaaskiisa marka reer buu u shaqeyn jiray reerkaas beerta u fali jiray iyaguna saddexdoo fiic cuntada siin jireen kaliya wuxuu lahaa laba digaagadood labada digaagad iyo labada caruura iyo xaaskiisa inta hanti aan hayn muu haysanin dabadeed waxa dhacday maalmaha kamid ah inuu meeshii soo maro marka lacag yar buu ka qaadan jiray iyo cuntada iyo meeshii caruurta seexanaysan dhul hektaar buu qodi jiray beeraha buu ka shaqeyn jiray uusan lahayn laakiin ninku maalmaha kamid waxa dhacday inuu meeshii soo maro nin taajir ah markaas wuxuu dhahay tuulo heblaayo dhulka wax yar waxba ahayn lacag yar baa laga qaadayaa oo waxa ku nool dad aad u xigmad badan meeshaasi lacag badan dadka kama qaadaan dhul way ku siinayaan ama waxa soo dhulaad inta ku siir ku soo iibsatay lacag yar haysto ninkii qaatay subaxii dambe aroortii waxa beertu ka shaqeyn jiray kama shaqeynin toos buu baxay wuxuu aaday tuuladii la yiri dhul jaban baa laga helaa ninkii sidii markuu ku aaday tuuladii uu tagay tuulada waxa ku nool dad aad u xigmad badan oo dunyadu deeqaadin oo dad aad u degan ah dad iska beerley iyo xoolo dhaqato isugu jira degan ninkii way u tagaan waxa loo geeyay ninkii maamulihii magaalada loo geeyay dadna wuxuu yiri maxaad u baahneed maxaad rabtay wuxuu yiri dhul baan u baahanahay lacagna waan sitaa inaad iga iibsaan baan dabacsana wuxuu yiri anagu cashuurta yar dawladda mooyaane dhulka cidna kama qaadna lacag oo dhulka kama iibino laakiin nin kasta waxaanu siinaa inta uu orod ku gaaro ee kaga soo noqdo in allaale intaad orod ku gaadid waxa dhul muuqda waa lagu siinayaa ee kaga soo noqotid intaan qoraxdu dhicin okay ninkii wuu yaabay wuu farxay habeenkii tuuladii buu seexday aad baa loo marti sooray subaxii markii saa qoraxdu u baxay laba nin lagu yiri dhul baa lagu siinayaa orodkaaga lagu siinayaa dhul subaxdii markii qoraxdu soo baxday dadkii tuulada dhan way isku soo baxeen waa la isku yimid waxa la yiri waxaad leedahay dhulka in laaliyo inta ay dacagtaadu ku geysad soo orodid ninkii wuu soo orday orodkii wuu bilaabay waa qoraxda markii saa u soo baxday buu orodka bilaabay dan waxa la yiri qoraxdaas inta ay ka dhacayso adigu khiyaarkaaga leh inta qoraxdaas ka dhacayso dhulka inta ordideed ku soo noqotid baan ku siinayna ninkii waa orday dawaan dhul jacayl lagu saldo awal faqr oo dabada ka soo dhameeyay awal meel faqr ku noolaan jiray dad u shaqeyn jiray wuxuu silmaanta Chinese baad haysataa dhul ku heli kartaa adigu iska leedahay marka wanaad ka faa'iideysataa ninka orodkii buu bilaabay wuu orday duhur baa la gaaray hadba meel buu orday markuu adag la gaaray ilaa iyo labadii duhurnimo uu dharar maanta dhan dharar u orday ninkii ayuu hadana wuxuu meel kastuu dhaafo orday inuu sii dhigaa wax lagu garto inuu meeshan orday si hadhow loogu calaamadayo oo loogu soo oodo adoo ninkii iimaan xumana way qaaday labadii galabnimo markii ka gaadhay ayuu hadana wuxuu orday balac wuxuu si dharar u orday dhul dharar lagu siiyay balacna bal orod hadana balac buu orday hadana wuu arkay muu saddexdii galabnimo oo afartii oo shantii markay ahayd xagee joogo meel uu fogaaday si uu orday meel aan ka soo noqon karin ayuu siri ka gaadhay daba intaana qoraxdu dhilaaday qorax salaad waxba kuma leeyahay dadkii u tag ninkii wuu soo orday dadkii uu meel uga soo muuqday marka ayagu meel sare saaran yihiin laakiin isagu waxa arkay inay qoraxdii ka sii dhacayso oo wax yar oo ay kala badh ay dhulka ku xirootay wuu dhacay hadana lawaaneen maanta dhan orday wuu gurguurtay markii dambe gurguuradkii uu ka dhacdana beerku ku socday markuu beerka u socday dadkan ayaga qoraxdu wali way u muuqatay meel sare saaran waxay ku leeyihiin soo orod waad ka gaadhaysaa soo orod ninkii aad wax weyn hadal kugu daalinay markii halkii ugu dambeysay uu gaadhay xariiqdii loo si calaamadiyo markii ka orday markuu soo gaadhay wuu yimid halkii buu isku soo tuuray isagoo beer u soconaya ninkii
dadkii baa soo waryaa ninkan waaba laga yaabay ninka maanta oo dhan ordayay maalinta oo dhan ilaa 7dii subaxnimo 6dii subaxnimo ilaa 6dii maqribnimo ninka ordayay ninkan waaba nin amiirka magaalada ka dhiganaaba ninka saa dhulka u jecel dadkii u tagay siraadeen ninkii waa loo tikaalay ninkii waa meyd afkii sanka ayay ka yimaadeen dhiig baa ka yimaadeen maxaa lagu aasay ninkii ordayay intaas oo kiiloomitir oo soo orday 2 mitir uu sheegay ayaa lagu aasay marka waxaan ii sheegay waxba adduunyada iimaanka idin ka qaadin sheekadaas waa sheeko aad u xigmad badan ninkii fahmaya insha Allah waxaan rajaynayaa inaad wada fahanteen saan aniga bu xigmada uga qaateen adinkuna xigmada uga qaadateen ninkaas wuxuu ordayay adduunyo laakiin muxuu 2 mitir hadaan heli lahaa adduunka waxba igama galin buu yiri cidna 2 mitir waa lagu aas marka hadad su'aasha lagu weydiiyay lagu dhaw qofka adduunyada inta joogo dhul intee lag baa ku filan 2 mitir lagu aasay baa kugu filan marka waxaan rajaynayaa khayr badan saxaabta waxbana waa adduun la iskuma murjiyay waxaan ما فهمت قف كست لبدا متربو هذه إن شاء الله أنا يدينكم بحرجين أنا آخرتنا وش قيسنا جمع وناكسن إن شاء الله بإذن الله كريم هذه الباقي السلام عليكم.